filimku wuxuu ku bilaamayaa mustaqbalka dhow qalalaase xun ayaa ka bilaamaya qaaradda Yurub. Dadkuna waxay waayeen adeegyada baahiyaha aasaasiga ah. Dowladda Spain waxaa la wareegayay maamulka ligii talis ah, kaasi oo go'aansanaya inuu wax ka qabto yaraanta khayraadka isagoo baabinaya dadka. Marka hore waxay dilayaan dadka waayeelka ah, marka xigtana waxay beegsanayaan haweenka uurka leh iyo carruurta. Wadamada sida Ireland iyo Norway waxay ku guuleysanayaan inay joojiyaan xasuuqa oo ay ka soo horjeestaan nidaamka kaligii taliska ah. Dad aad u badan ayaa u qaxaya dhulkaasi. Dadkaasina waxaa ka mid ah Nico iyo xaaskiisa oo uur leh oo lagu magacaabo Mia. Mia habeenada ka mid ah nin tahriibiye ah ayaa u kaxaynaya dekad khaas ah, halkaasi oo loogu talagalay inay ku dhex baxsadaan container. Inta badan waxay maqlayaan bilayska oo xidhaya qaar ka mid ah wadooyinka laga baxsado, laakiin waxay ku guuleysanayaan inay dhaafaan. Hore ayay u bixiyeen wax kastoo ay haysteen, sidaas darteed ma haystaan wax kale oo aan ahayn inay siiyaan faraantigooda arooska. Kadib lamaanahan ayaa gelaya gadaasha dambe ee gaadhiga xamuulka ah oo ay saaran yihiin dumar fara badan oo la baxsanaya carruurtooda. Maya waxay ka walwalaysaa cunugeeda caloosha ku jira maadaama aanu dhaqdhaqaaq samaynayn. Intaas kadib Nico ayaa xaaskiisa madaxa u dejinaya isagoo siinaya juklaato, waana waxa kaliya uu haystay. Intaasi kadib mid ka mid ah dadkii ku dhuumanayay containerka ayaa daloolinaya si uu u arko waxa ka socda dibadda. Dhowr saacadood oo socda kadib, gaadhigu wuxuu istaagayaa si uu dad badan oo qaxoonti ah u soo qaado. Dadkaasi ayaa si degdeg ah uga soo yaacaya gudaha, baabuurkiina aad buu u buuxsamayaa. Sidaa darteed mukhalisiinta ayaa ku dhawaaqaya inay kooxda laba qaybood u kala qaybin doonaan. Dumarka iyo carruurta ayay kaga tegayaan halkan, raguna container kale ayaa la saarayaa. Nico waxa uu isku dayay inuu u sharaxo inuu hore u saarnaa gaadhigan isaga iyo xaaskiisu, laakiin waa la iska indhatirayaa codsigiisa, waxaana khasab loogu kaxaynayaa xamuulka kale. Maya waxay ka daawanaysaa daloolka sida ninkeeda xoogga loogu kaxaynayo, markaasi waxay isticmaalaysaa taleefankeeda si ay ula xidhiidho. Nico waxa uu sheegaya inaanay welwelin sababtoo ah baabuurtu waxay u socdaan isku dhinac si ay hodhow u midoobaan. Intii baabuurku sii socday, Mia waxay daawanaysaa waxa dibadda ka socda, iyadoo oo dhibsanaysa rabshada gees kasta ka socota. Askartuna waxay dilayaan carruurta, dumarkuna waxaa lagu kaxaynayaa qafisyada xoolaha. Muddo kadib gaadhigu wuxuu istaagayaa meel isbaaro ah. Dumarka oo dhammina waxay u yaacayaan dhabarka dambe ee containerka. Darawalkuna waxa uu tusayaa askarta waraaq tusaysa inuu shixnad wado, laakiinse askartu waxay furayaan baabuurka si ay u hubiyaan. Aragtida hore kaliya waxay arkayaan dhowr sanduuq, sababtoo ah dadku waxay ku dhuumanayeen derbiga dambe ee been abuurka ah oo si qarsoodi ah loogu sameeyay containerka dhexdiisa. Si kastaba ha ahaatee, hogaamiyuhu wuu shakiyaa, waxaana uu u dirayaa mid ka mid ah raggiisa gudaha, isagoo ka codsanaya inuu aado gudaha inta suurtagalka ah oo uu dhinaca ka joogto gidaarka. Markii uu ogaaday farqiga fogaanta, hogaamiyuhu wuxuu ogaaday inay jirto qayb qarsooni. Markaas ayuu gudaha u galay isagoo wata koox askartiisa ah, wuxuuna ka codsaday dumarka inay soo baxaan. Mia ayaa dul fuulasa sanduuqyada dushooda ka hor intaanay mid ka mid ah haweenka aysan furin gidaarka been abuurka ah. Hogaamiyaha ayaa isla markiiba dilaya askartii kalena waxay ku furayaan rasaas si ay u dilaan kooxda oo dhan. Mia waxaa soo gaadhaya dulduulka dhiigooda. Ugu dambayn waxa kaliya soo haray waa gabar yar, laakiinse askartu waxay hubinayaan inay sidoo kale dilaan ilmahaasi. Kadib markii ay tageen, Mia oo ooyeysa ayaa ninkeeda u dirtay fariin, una sheegtay inuu isqariyo. Dhowr saacadood oo socdaha kadib, baabuurku wuxuu gaadhay dekad kale oo weel laga rarayo si markabka loogu qaado. Mia ayaa mar kale isku dayday inuu wacdo Nico, laakiin isagu muu qabanin taleefanka. Muddo kadib Mia waxay toostay markii markabku bilaabay inuu ruxmo. Daloolkii ay xabaduhu dalooliyeen ayay ka eegaysaa, waxayna arkaysaa badmaaxayaashii oo hareeraheeda yaacaya, sababtoo ah waxaa bilaabmay duufaan xoog leh. Mia waxay bilaabaysaa inay ku qayliso caawimaad, balse nasiib xumo duufaantu waxay ka tuuraysaa markabka containerka ay saarneyd. Si lama filaan ah waxay u waayaysaa miirkeeda. Daqiiqado kadib Mia way soo kacaysaa, waxayna ogaanaysaa inay biyuhu ka soo galayaan godadka containerka. Markii ay dabadda eegtay, waxay ogaanaysaa markabkii inuu degay oo hadda dhammaan containeradu ay ku jiraan badda, waxayna bilaabaysaa argagax. Waxayna isku dayaysaa inay wacdo Nico, laakiin taleefankeeda ayaa jabay oo ma shaqaynayo. Kadib waxay isku dayaysaa taleefan kale oo ku jira boorsada inay la soo baxdo, laakiin nasiib xumo iyadu ma garanayso passwordka.
kadib markay hubisay in ilmuhu u fiican yahay Mia waxay isku dayaysaa inay joojiso biyaha ku soo qulqulaya gudaha waxayna furaysaa dhammaan sanaaduuqdii ku jiray gudaha nasiib darrase waxay ka helaysaa oo kaliya waxyaabo ay ka mid yihiin weel caag ah iyo telefishinno isla markiiba waxay dibadda ka maqlaysaa qaylo oo waxay arkaysaa konteenarkii ninkeedu ku jira oo si aayar u quusaya biyaha Mia oo quusata ayaa bilowday inay ku qayliso magaca ninkeeda habeenkii markii la gaadhay Mia ayaa qaadatay midida sababtoo ah waxay ku fakaraysaa inay soo afjarto nolosheeda laakiin si lama filaan ah ayay u dareentay inuu ilmuhu dhaqdhaqaaqayo Mia ayaa go'aansatay inuu noolaado ilmaheedu Mia ayaa waxay dareentay inay si xawli ah ugu soo qulqulayaan gudaha waxayna Mia u malaynaysaa inay qarka u saaran tahay inay qarqoomaan kaliya si lama filaan ah ayay u soo toosaysaa oo waxay ogaanaysaa inay tahay riyo waxayna keenaysaa fikrad ah inay caaga ka saarto daboolka weelka waxayna u isticmaalaysaa inay daboosho godadka konteenarka intaa kadib waxay dibadda u saaraysaa dhammaan biyihii soo galay gudaha kadibna waxay hubinaysaa sahaydeeda isla markiiba taleefankeeda ayaa waxa soo wacay nambar aanay garanayn Mia ayaa ka jawaabtay si ay u ogaatay inuu yahay Nico ayaa u sheegay in darawalkii kale uu khiyaameeyay halkii uu degayn lahaa ayuu kooxdii kaga tegay meel ka baxsan magaalada Mia ayaa u sheegtay waxa ku dhacay wuxuuna u ballanqaaday inuu badbaadin doono laakiin hadda waa inay sii wadataa kaydinta bayteriga moobilka si ay u badbaadiyaan ilmahooda si lama filaana Mia ayaa dareentay xanuunka foosha waxay sidoo kale dareentay inay duufaan xoogani ku soo wajahan tahay duufaantan ayaa timi waxayna ruxday konteenarkii Mia waxay ka qaylinaysay xanuunka foosha biyuhuna waxay bilaabeen inay soo galaan gudaha konteenarka waxaana mar labaad soo dhacay taleefanka laakiin gacanteeda ayuu ka siibtay kadib markii ay isku dayday inay ka jawaabto waxayna kor fuulaysaa sanduuqa iyadoo sugaysa inay duufaantu dhaafto subaxii dambe intii ay awoodday ayay meeshii hagaajisay waxayna ilmihii ku riday sanduuq yar laakiin taleefanka waxa waxyeello u geystay biyaha mana shaqaynayo marka ay Mia maqashay dhawaaqa birta ee sanduuqa waxay heshay fikrad waxayna isticmaashay mashiinka laydhka waxayna bilowday inay samayso god saqafka ah iyadoo rajaynaysa inay jarto saqafka si kastaba ha ahaatee qaylada ilmaha ayaa ka dhigtay mid aan dhammaystiran shaqadeeda waxayna isku dayday inay dejiso ilmaha yar Mia nafteeda kama joojin karto inay dhammayso dhammaan cuntada ay haysato dabadeed waxay dib ugu noqotay qodista saqafka laakiin nasiib darro dabkii ayaa ka dhammaaday baytarigii kahor intaanay dhammayn shaqada kadib waxay isku dayaysaa inay isticmaasho mindida si ay daloolka saqafka u sii dhammaystirto laakiin tani waxay bilaabaysaa inay dhaawacdo gacmaheeda Mia ma haysato wax kale oo ay samayso oo aan ahayn inay daryeesho ilmaheeda si lama filaan ayay dibadda ugu maqashay nibiriga oo ruuxaya konteenarka taasi oo keentay inuu ilmuhu ooyo Mia waxay kaga jawaabtay inay garaacdo derbiga oo ay cabsi gelisay nibiriga subaxdii xigtay Mia waxay mar labaad isku dayday inay midida ku dalooliso godka laakiin kaliya mididii ayaa jabtay taleefanku weli ma shaqaynayo Mia waa inay cabtaa inta u dambaysa biyaha nadiifta ah kuleelka jira awgeed ugu dambeyn awoodeedii ayaa soo noqotay kadib markii uu roob ugu soo galay daloolka saqafka intaa kadib waxay helaysaa fikrad waxayna isticmaalaysaa awoodeeda si ay daloolka u dhammaystirto ugu dambeyn waxay ku guulaysanaysaa inay dhammaystirto hawsheeda waxayna u soo baxaysaa iftiinka quruxda muddo kadib si kastaba ha ahaatee Mia waxay dareemaysaa baahi aad u badan waxayna go'aansanaysaa inay badda kalluun ka dabato iyadoo isticmaalaysa xadhko ay ka heshay sanaaduuqdii ku jirtay konteenarka maalin ayaa Mia waxay arkaysaa iyadoo ay kor mariso diyaaradii waxayna go'aansanaysaa inay muraayadda reflectionkeeda kaga jawaabto laakiin nasiib xumi Mia waxaa lugteeda ka jaraya ama ka dhaawacaya bir meesha ka soo jeeday waqtigu uu soconaya waxaana konteenarka ka buuxsamaya biyo waxayna ku kalifaysaa inay fuusho dusha sare ee konteenarka muddo kadib waxaa soo wacaya Nico waxaana uu sheegayaa inaanu badbaadin karin si lama filaan ah moobilkii ayaa dabka ugu dhacaya wixii intaa ka dambeeyay waxay soo xasuusanaysaa chocolaatadii uu ninkeedu siiyey wixii intaa ka dambeeyayna weel ay caag ka samaysay ayay inanteeda dhex gelinaysaa waxayna ku sii deynaysaa biyaha Mia waxay ku laabanaysaa gudaha si ay alaab ugu soo baxsato gudaha laakiin nasiib darro xadhig ayaa qabsanaya halkan dheer kadib waxay ka soo baxaysaa markii waagu baryay waxaa layna tusayaa Mia oo la halgamaysa badbaadinta inanteeda intaa kadib waxaa layna tusayaa lamaanahan oo ka kalluumaysanaya badda ayaa arkaya waxayna badbaadinayaan inanteeda waxayna arkayaan xadhig ku xidhan inanta yar
waxayna soo jeedayaan xadhigga waxayna arkayaan Mia. ugu dambeyn Mia way badbaadinayaan waxayna u sheegay ku wargelinayaan inay joogaan waddanka Ireland. halkaasi ayuu filimkeenna ku soo dhamaanayaa. filimkana waxa magaciisa la yiraahdaa Nowhere. fadlan haddaad nagu cusub naga ilaawin subscribe iyo like-ta.